بسم الله الرحمن الرحيم الدعوة ضيال هلكن وابينو لايف بينو برصة يوتيوب برتانو كلنا هي يوتيوب warkaasi waxaa idinla socodsiinaya Cabdisamed Yuusuf. ciidamada Ruushka ayaa saaka oo isniin ah sheegay inay xabadda joojinayaan si ay fursad u siiyaan inay shacabka reer Ukraine isaga baxaan magaalooyinka Kyiv iyo Kharkiv, Mariupol iyo Sumy. magaalada Mariupol ee ku taala xeebta koonfureed ayay shalay markii labaad ku guuldareysteen dadaalkii shacabka ee magaaladaasi looga saari lahaa kadib markii ay jabtay xabad joojin ay ku dhawaaqeen Ruushka iyo Ukraine. Ruushka ayaa sheegay in ay dhawaan bilaabi doonaan howlgalka military ee gudaha loogu galayo caasimadaha dalkaasi. Kyiv ayaa arintan sare ugu qaaday in ay dadku ay isaga qaxaan magaaladaasi. waxaana sidoo kale la filayaa in Ruushku uu dardar gelin doono duqeynta magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi Ukraine. Ra'iisul Wasaaraha Pakistan Imran Khan ayaa weerar afka ah ku qaaday safiirada reer galbeedka u fadhiya Islamabad kuwaasi oo ku booriyay dalkiisa inuu cambaareeyo gulufka Ruushku uu ku qaaday Ukraine, isagoo oo weydiinaya in ay Pakistan u maleynayaan in ay adoon u tahay wadamada reer galbeedka. ayaa waxa uu yiri madaxa 22 safaaradood ay ku jiraan kuwa dalalka xubnaha ka ah midowga Yurub ayaa kowdii bishii Maarch si wada jir ah u daabacay warqad Pakistan ay kaga dalbanayaan inay taageerto qaraarka golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay ee lagu cambaareynayo weerarkii Ruushka. Pakistan oo ah xulafada soo jireenka ah ee reer galbeedka ayaa ka aamustay codbixinta iyadoo golaha guud ee qaramada midoobay uu si weyn ugu canaantay Ruushka dagaalka uu ku hayo Ukraine. si kastaba ha ahaatee Pakistan ayaa colaadaasi dhexdhexaad ka noqotay. sidoo kale waxa iyaguna dhexdhexaad ka ahaa Shiinaha iyo Hindiya iyo dalal kale. waxaan rabaa buu yiri Ra'iisul Wasaaraha Pakistan in aan weydiiyo safiirada midowga Yurub warqad noocan oo kale ah ma u qortay Hindiya. waa Khan ayaa sidaa yiri isagoo xusay dalkan ay xafiiltamaan Pakistan sidoo kalena ka aamusay codayntaas, isagoo intaasi ku daray in dalalka Yurub aanay ku dhaleecayn Hindiya ficilada ay ka wado Kashmir, taas oo horseeday laba dagaal oo dhex maray Hindiya iyo Pakistan. waxaanu carabka ku adkeeyay in Pakistan ay dhibaato ka soo gaadhay taageerada ay siiso ururka NATO ee Afghanistan. waxaanu carabka ku adkeeyay in Pakistan ay dhibaato ka soo gaadhay taageerada ay siiso ururka NATO ee Afghanistan. halkii ay uga mahad celin lahaayeen ayay la kulantay dhaleecayn. waxa sidaas yiri Ra'iisul Wasaaraha dalka Pakistan Mr. Khan. dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in ay wada hadal kula jiraan xulafadooda qaaradda Yurub sidii ay gabi ahaanba loo joojin lahaa iibka batroolka laga soo saaro dalkaasi Ruushka oo ka mid ah ilaha dhaqaalaha ee ugu muhiimsan ee xukuumadda Vladimir Putin. waxaanu hadda wada hadal kula jirnaa saaxiibadayada reer Yurub oo ku saabsan mamnuucidda saliidda Ruushka ee dalkeena timaada, iyaga oo damacsan isla markaana ilaalinaya sahayda saliidda joogtada ah ee caalamiga ah. waxaa sidaa yidhi xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antonio Blinken mar uu shalay toole ka hadlayay arrintaas.